waatahay maanta waxaan oo bilaaban doonaa dartankeena aadka u xiisaha badnaa ee lagu qaban jiray barxadda iskuulka Alwaasac isla markaasina waa tartankan maanta la qaban doono wuxuu yahay midkii finalka ahaa semi-finalka ahaa ee kooxdii laga badiyana ay sidaas ku hareysay kulanto waxaan u wanaagsan marka ugu horeysa aqyarey maanta waa maalinimo Arbaca ah bishana ay ku aasaysan tahay 24kii bisha afaraad sanadka 2024 tartankan ayaa wuxuu yahay tartan aad iyo aad u xiiso badan oo ay ku tartami doonaan labada fasal ee kala ah dugsiga sare F1 F2 iyo dugsiga hoose oo fasalka afaraad tartankan kooxdii maanta afka ciid loo daro way xari doontaa oo waa net out sidaas ayaynu ku xari doontaa waxa kale oo ardayda aan ogeysiinaynaa haddii bareeja la noqdo inay jiri doonaan su'aalo dheeri ah oo lagu kala reebi doono labada fasal ee tartamaysa maadaama uu maanta yahay net out qofkii laga badiyo kooxdii laga badiyaba ay sidaas ku hari doonto oo ay soo laaban doonin sidaas la socda waatahay waxaynu soo gaarnay gabagabadii iyo guntii barnaamijkeena tartanka aadka iyo aadka u xiisaha weyn ee lagu qabtay iskuulka Faca Weyn laguna tartamo tartankii la magac baxay cilmi gaal isla markaasna ka dhaca inta badan aynu ku tartamaan fasalada kala duwan ee iskuulka Faca Weyn Alwaasac Primary and Secondary School waasiyaha aqoonta haddaba maanta waxay ahayd maalin Arbaca ah waxayna taariikhdu ku aasaysan tahay 24ka bisha afaraad sanadka 2024 waxa muddo 2 isbuuc ayaan waxaanu ku jirnaa xagga nasiinada ah ee tartankeena maantana waxa halkan foodo isku daray labada fasal ee ah form 2 iyo fasalka yaryarka ee afaraad dugsiga hoose tartankan ayaan wuxuu yahayba midkii semi-finalka ahaa ee kooxda laga raayo aanay dib dambe u soo laabanayn haddaba tartan haddii ay wada galaan laba kooxood mid uunbaa guusha ay raacdaa midka kalena waxa raacdo guuldarrada haddaba kalama cadda labada fasal ay maanta halkan barxadda iskuulka Alwaasac ku tartamayay ee fooda isku daray cidda ay guusha raaci doonto qola kastaba faraha iyo waxay ku haysaa wadnaha oo waxay leedahay ma adiga guulaysan doono ma laga guulaysan doonaa mise waa iska galban doontaa iyo waxa la galban doontaa guuldarradaada inta ayana ku soo gagabeynayna tartankeena aadka iyo aadka u xiisaha badnaa waxaynu sugnaana waa natiijada cidda ay maanta guusha raacdo waxa noo cadeyn doono Ustaad Xasan Asiga ayaa ku soo dhaweynaya oo dhibcaan u qorayay Ustaad ku soo dhawow Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du waxaan cadeynaynaa natiijada tartankii aan maanta inta ka dhacay iskuulka Alwaasac Primary and Secondary School maanta waxaa tartamayay labada fasal ee kala ah fasalka afaraad iyo fasalka form 2 tartanka maanta meeshan ka dhacay waa ka bedelnaa tartankii horey u dhici jiray ee iskuulka ama fasalka F2 haddaan ku bilaabo sida caadiga ah oo ay xaq u lahaayeen waxaa la weydiiyey 7 su'aal oo min 2 su'aal lagu weydiinayo maado kasta 7 maado maadooyinkaas oo kala ah tarbiyada Soomaaliya Geography English Biology Business and Math 7 maado meeshan lagu weydiiyey oo mid kasta 2 su'aal lagu weydiiyey marka la isku dardaro 7 maado ee la weydiiyey waxay halelmareen 2 su'aal oo kamid ah maadadii su'aalihii la weydiiyey ee ahayd
سؤاله لويدي 14 سؤال هيد لaba su'aal hadii laga jaro 14 su'aal waxay ka jawaabeen 12 su'aal waxay heleen 24 dhibcood waxay heleen tartankoodii maanta waxay ka heleen 24 dhibcood waxay haystaan marka 24 dhibcood maadooyinka ay heleen maraan waa maadada koowaad ee su'aasha Englishka su'aasheedii koowaad maadada Englishka su'aasheedii koowaad iyo maadada businesska su'aasheedii koowaad haddaan imaado fasalka afaraad waxa la weydiiyay 7 maado oo lagu weydiiyay maado kasta 2 su'aal markaas isku noqonayaan 14 su'aalood 14 su'aalood dhammaan su'aalaha la weydiiyay hal haba ma zeereen dhammaan way ka jawaabeen marka dhammaan way ka jawaabeen dhammaan su'aalihii la weydiiyay jawaabahoodii si fiican bay uga jawaabeen waxayna heleen 28 dhibcood 28 dhibcood 14 su'aal oo laba su'aal ah waa 28 dhibcood meeshaasna waxay ka heleen 28 dhibcood afaraad waxaan leenahay hambalyo ayaa maanta guusha qaaday waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan maadaama ay yihiin kuwa oo tartamaya meeshan oo iskuulka ugu yaryar ardayda ugu da'da yar ee iskuulka oo meeshan ku tartamaya sanadkan waxaan leenahay hambalyo waxaan ku wareejinayaa guddiyaasha kale ee tartanka ila waday waatay tartankeena xiisaha banaa inoo soo bilowday saakii 2 saac iyo barkii ayaa inta ugu dhamaaday waxaan u rajaynaynaa fasalka guuleysta maanta hambalyo ayaan leenahay soo barbaara mustaqbal ifaya ayaan